Slightly, the fact that there is no ICU space, the fact that isolation wards are getting full in record days, that would mean that most will lack access to healthcare. So even as you're talking about expanding and building ICU spaces or increasing the ICU capacity, ururka dhaqaatiirta Kenya ayaa sheegay inay buuxsameen dhammaan sariiraha loogu talagalay dadka ay xaaladoodu liidata ee ICU-da loo yaqaano. Sababta ayay ku sheegeen in cudurka COVID-19 uu si ba'an uga faafay Kenya. Dadka uu soo ritay cudurkan ayaa waxa ka mid ah howlwadeennada caafimaadka. Tirada rasmiga ah ee dadka COVID-19 ugu dhintay Kenya ayaa hadda ah 2,000 oo qof. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in noocyada cudurka ee lagu arkay UK iyo Koonfur Afrika ay sabab u yihiin faafidda cusub ee cudurka. Horaantii bishan ayay Kenya waxa ay bilowday in dadka cudurkan u nugul ay ka talaasho. Ururka ay leeyihiin howlwadeennada caafimaadka Kenya ayaa sheegay in dalka uu wajahayo xaalad adag xilli ay buuxsameen sariiraha lagu dabiibo dadka aadka u liita. Kusimaha xogayaha guud ee ururkaasi Chibanzi Amwajonda ayaa sheegay in howlwadeennada caafimaadka ay ka mid yihiin dadka uu cudurka soo ritay. 10 dhakhtar oo uu cudurka ku dhacay iyagoo ka howlan la tacaalidda bukaanada ayaa hadda jiifa cisbitaallo ku yaala dalka oo dhan, ayuu yiri Chibanzi. Ururka ayaa intaasi ku daray in shacabka Kenya aysan u muuqan khatarta cudurka oo ay intooda badan iska dhagatirayaan tallaabooyinka caafimaadka ee looga hortagayo faafitaanka cudurka. Sida caadiga ah dadka dhaqaalaha haysta ayaa bukaanadooda geysta cisbitaalada, kuwaasi oo hadda qaarkood ay bilaabeen inay bukaanada weydiistaan $10,000 ka hor inta aan la seexin. Waxaa laga deyrinayaa hanaanka baaritaanka ee Kenya oo la sheegay inuu hooseeyo, isla markaasna aan muujinaynin sawirka dhabta ah ee faafidda cudurka. Xilli laga cabsi qabo in hanaanka daryeelka caafimaadka ee Kenya uu culays weyn kala kulmo xanuunka, ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in degdeg loo kordhiyo tallaalka COVID-19. Jimcihii la soo dhaafay Kenya ayaa diiwaangelisay dhimashadii ugu badnayd ee tan iyo markii uu cudurkani dilaacay, waxaana u geeriyootay 24 saacadood gudahood 28 qof.